halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa oo ah mid aad u saxmad badan waxaana ku dhex yaala suuq marka aad aragto si weyn ku soo jiidanaya kaasi oo ka duwan dhammaan suuqyada kale ee caalamka. goobtan ayaa ah goob si weyn caan uga Hargeysa waana goob ay yaalaan $100,000 kuna taala meel aad u ciriiriya wana suuqa sarifka Hargeysa. badi goobaha ay yaalaan lacagaha ayaa ah kuwa si weyn loo adkeeyo ammaankooda isla markaasina leh ilaalo xoog leh balse goobtan arrinku waa ka duwan yahay sida aynu ku aragnay wadamo waaweyn oo caalamka ah sida Mareykanka, Ingiriiska, Kanada iyo qaar kale badan. goobtan ma joogaan wax ilaalo ah oo gaar u ah marka laga reebo ciidamada ammaanka ee guud. arrinta ku soo jiidanaysa ayaa ah in habeen iyo maalinba ay taalo goobtan lacago gaaraya $100,000 kuwaasi oo halkaasi yaalay 30 sano ugu dambeeyay. dadka goobta ku ganacsanaya ayaa ku sheegaya in dadweynuhu ay la qabsadeen lacagahan gaaraya $100,000 oo ay iyagu ilaaliyaan. arrinta cajiibka ayaa waxay tahay lacagtan hadda aan gacanta ku hayo waa 1 milyan oo kaasha tan kalena waa 1 milyan oo kaasha oo u dhiganta $117 mid kasta. runtii waxyaabaha cajiibka sida weyn ku soo jiidanaya ayay ka mid tahay marka aad timaado magaalada Hargeysa. suuqan ayaa waxa la aasaasay 1991 dad fara badan ayaa waxay ku noqotaa cajiib marka ay halkan imaadaan gaar ahaan dadka ajaanibta ah. suuq bay noqdaan waxay u dhigantaa oo inagu daaliyeen maalin walba intaas imsa u dhigantaa inta lacag kala badan baan imika baxaya hadda lacag kala soo saaro ma yeelaan waxay yeelaan inay lacagta qiimaystaan halka taalo oo ay daawadaan oo ay isku sawiraan oo ay 10 jeer soo ugu celiyaan waxay la yaabeen ammaanka ay ku taalo fursadan ay halkan ku heshay ammaanka bay la yaabaan. marka laga imaado lacagta kaashka ee halkan lagu isticmaalo ee shilinka ah waxa jira sidoo kale suuqana aad ka helaysaa in lagu sarrifo lacagaha kala duwan ee caalamka sida dollarka, lacagta turkiska ee liirada iyo sidoo kale lacagta laga isticmaalo qaaradda Yurub ee yuurada. runtii lacago fara badan ayaa halkan yaala oo aad ka helayso sarrifkooda. dhanka kale suuqan ayaa dadka qaar waxay ku tilmaamaan bangiyada furan maadaama lacagtu ay taalo dibadda. way adag tahay in suuqa sarifka Hargeysa mid la mid ah lagu arko deegaano iyo goobo kala duwan oo ka mid ah caalamka. ku xidhno Ayuub Show.